يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. موضوع maanta mawduucyadii ka gedisanaya idin soo gudbinaya hadii alla awoodo la idmo hadii aan mar cunto karinay marna arigi raacay maanta waxaan la socdaa wiilashii koraydii mid kamid ah korayda yaryar ee guriga jooga ma wiilasha hadda soo kacaya gaar ahaan wiilka idin muuqda shaqo uu reerka u qabto ayaa waxaan maantay oon kula qabanayaa marka shaqadaasuna shaqo kale ma ahan reerka waxa uu jooga qaalin yar ama rati qaalina lama dhigi karo adiga rati dhexe oo 5 jir meelaha ah ayaa reerka u jooga mar walba geel ayaa laga soo reebaa reerku geel male laakiin ratiga oo kaliya ayaa u jooga reeruhu waa jiraan reera kale familka oo geel leh laakiin reerkan hadda aan joogo geel ma lahaan marka laga reebo ratiga maadaama xilli roob lagu jiro halaha ayuu ceyrsadaa oo laga soo reebaa mar walba ama geela baadida inkasta marka waa la keenaa guriga la keenaa geelasha laga soo reebaa marka maantay waaniga wiilka la socda ratigi baan raadinayna ama awrkii marka waxaan kala qabsada wada arki doontaan taariikh buu nagu dhigi doonaa ratiguna uu ka gedisan yahay awrta kale waa rati dad cuna ama awr yar wax weeye carruurtu marka yarey sida ugu ciyaari jireen aakhirkii wuxuu noqday dad cun ayuu noqday ama dadka inuu marka qaar ceyrsado yacni dadka xoog uma cuno laakiin marka qaar wadila arki doontaan waa awr yar oo dhib badan kugu soo jeesanaya sababtana waxa weeye waa carruurta ayaa marka uu yaraa maxay tahay aad u dhibay jiray sida inta badan ariga aan ku aragno orgi dadila ama wan dadilo kale marka awrtuna sidaas kale way leeyihiin dudunta ayaan ku fiirinaynaa ama ku eegaynaa waayo dudumada inta badan inkastoo duduntaas ay yar tahay reemiyu xoolaha ay ku eegtaan ama ku fiirsadaan marka anigina waa ka duduntii baan fuulay ama koray marka bidhaantiisa ma raadinaynaa ama meel uun inuu ka muuqdo runtii wuu tagay aad buu u fogaaday adigu muddo waxay nagu qaadatay saacad iyo bar ah soo helitaanka ratiga walaalaha inta badan isoo dhaha dhulkan geedo ma lahan dhulkan waa dhir dhexe dhul banaan lama dhigi karo dhul hawdna lama dhigi karo awrkii waan helnay ratigii wax badan aan soo soconay muuqaalka waan boobsiinay marka ratiga waa kana waxa uu leeyahay calaamadiisu nuunbooda iyo laba shiid oo surka waa calaamad marka reer ku dhigtaan geedka cadaadka loo yaqaan marka laamankiisu ay maxay tahay argada yihiin ayuu daaqaya ma sha Allah marka ratigan runaantii rati caadi ma ahan carruurta aad buu dhibaa waa liiga shikay haddana maanta waan u bareeray waxaan iri war wax walba tahay waan soo arki doonaa halkaas soo maray u banaan tijaabiye hadda waanu imid dabarkii baa laga furaya waxa halka ku xiran waa dabarkii maxay tahay dabar baan anigu u garanayaa waxaana dadka aan fahmeyn ama dadka aan weligood miyay tagin waxa loogu xiraa xariga lugaha looga xirayaa in uusan fogaan oo waxa weeye meel dheer uusan tagin sababta asagoo sida uga xiran lugaha ayuu maxay tahay masaafo aad u dheer saaka kaliya uu soo jaray marka muhiimaddu waxay tahay geela waa la dabraa dabar haddaad maqashaan sida ayaa loo dabraa iska barta xarigii dabarkiina waa ka furfuraya ratigu hadda wuu ii taagan yahay inkastoo wiilkii uu garanayay uu dul taagan yahay haddana aniga wuu ii taagan yahay xarigii ayaan surka kaga xiraya hoggaan baa la yiraahdaa xariga dhowr magacna wuu leeyahay marka hoggaankii baan ku xiray oo wax weey qoorti aan kaga xiray laakiin waxa haray maxay tahay in wajiga looga sii xiro xarigii surka waan ku xiranay marka waxa haray wali wajigii ayaa haray in la keeneeyo iga xirnaa waa lugta uu cararaya qaalinku uu dhib badan yahay martigu uu dhib badan yahay marka waxa hartay in xarigii in la keeneeyo meesha wajiga keeneen ayaa la yiraahdaa magac kalena waa la ii sheegay waan hilmaamay marka surkii waan ka xirnay laakiin keenayntii buu diidayaa in xarigii wiilkii ayuu cunay oo u jeedaan ratigu caadi ma ahan ku rati dad cuna wiilkiina waxaan ku xanaaqay xabad feer u galiyay yaalku ayaga ayaa tababara ratiga cid kale qof weyn ma wadoono marka ratiga runtii maanta aad buu noo dhibay keenayntii wuu diiday xarigii kale marka wajiga looga soo xiray wuu cuntamaya xaaladdu caadi ma ahan ku meel ay u soo dhawaa karto islaantu ma ahan ninkii ratiga garanayay yaqaanayba hadduu sidaa u geliyaan waxa geebaan jooga halka waan iska istaagan waxaan sir bal horta iskaga dhaxbax keenayntu ha ku dambeysay adiga iyo meesha laga qaadine marka ratigu runtii aad buu dhib badan yahay wax badan buu nala raftay hadda waan u gelinay meeshii wajiga ahayd ama keenaynta loo yaqaan xarigii labaad
laakiin wuu ka baxayaa isla markiiba wadinka u jeedaa uu cuntamayaa ahaantii aniguna waan jeclaa maanta inaan shaqada dhameeyo oo waxaan ku yiri ratiga aan soo hogaamiyo dabarka ka soo furo laakiin ratiga waxaan ku yiri rati loo dhawaan kara ma ahan sida u jeedaan wiilkii waxa weeye inta badan loo diri jiray ama ilaa yaraantiisii soo waday ayuu sida u galiyaa aniguna waxaan ku yiri halkaas baan eegaya ma fiirinaya u jeedaa soo cuntamayo waliba wuu cabaadaya ama maxay tahay qaylinaya geela codkiisi marka ratigan wallahi ma garanayo kulli sida loo raro doono kulli reerkan ma filayaan inay rartaan mana ka dhawriyaan waayo isagoo yar oo wax weey inta leeg hadda waa 5 jir ayuu sida u dhaqmayaa wuuna ku weynaanaya waxa la sheegay rati hore sidaan oo kale reer ku lahaan inay sidaas kale liska iibiyay marka waxaan maleynayaa ma la raro doono wiil kala u yimid wiilashii isugu tageen mar walba ayuu sidaan u dhibaa mar kasta uu soo doono wuxuu ii sheegay dhowr meelood uu ka cunay waxa kaliya ku fiican yahay awrta martigan ilkama miciye ma lahan marka inuu qabsiista ma ahan oo qofka xoogaa xanfaf iyo wax dareemo ama dubka wax yar ka qaado dhaawac weyn uma geysan karo sidoo kalena kuma tubanayo oo awrtu maxay tahay ma weyna ratigan oo ma garin awrtu markay weynaato waxa weeye ay maxaa la jiray ay qooqaan oo kale ay dadka ku tuntaan ama ay aad dib u gaarsiiyaan laakiin isagu wili uu yar yahay inuu dadka cuno oo kaliya ama uu afka ku qabto ayuu sameeyaa runtii awood badan bay isku geeyeen intaas oo dhan keenaynta ama xarga in wajiga looga soo xiro ayaa loo marayaa waayo surka kaliya dad ka xirto kuma raacayo mana uu doonayo inuu guriga aado geeli oo cayrsanayo ayuu doonayaa marka sidaana uu ku tagay oo ku dheeraanaya guriga hadda masaafo dheer baan u jirnaa ilaa iyo 1 saac baan soo baadagoobaynay marka sida uu ku tagayaa hadii aan guriga la keenin marka waxa dhan uu diiday waxay tahaba in dib loo celinayo ayuu og yahay marka si walba taa ratigiisa ka dibkaas uu namarsiiyay ugu dambeyntiina waa la soo hogaamiyay oo waxaan ku yiri isagoo la soo xirxiray laakiin dib badan baa laga soo maray runtii adduunyadaanan joogno wixiina loo abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway awood ilaahay baa leh amaan rasuulkii baa leh acmaal adduunkan baa leh abaalgud aakhiraa leh adduunyadaanan joogno wixiina loo abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway ilaahintii adeecda awaamirtiisa raacda ilaaliso akhlaaqda ummadda u dhaxaysa way baqdiin ilaahay baa leh ballantayaan la baajin intaan bannaanka joogno barri ha loo shaqaysto way tabaabushaan bilowno hurdadaan ka toosno ilaah u toobadkeenno talaada aynu saarno ثمار جنات قفدوني ثلوث كالليل كساحا ثقو إلهي هيستان ثوابك خير كواي الدنيا لا ننجونا وحينا رابوري هدينا نلالي نسلاني باديا جهاد نفتان قادنو إلهي أنجعلانو إبليس كيونا جيدا عذابنا جهين الدنيا لا ننجونا وحينا رابوري هدينا نلالي نسلاني ماديا حرانتي حلاشا إلهي باحدي نفتان حكمينو حبال انتان لقارن الدنيا لا ننجونا وحينا رابوري هدينا نلالي نسلاني ماديا خالقان كخوفنا وخاتوم ذن سوبي أو خير خلق الله خدكم مرين الراعي الدنيا لا ننجونا وحينا رابوري هدينا نلالي نسلاني ماديا
diintaan ilaahay baa leh dariiqna nooga yeelay intii damiir islaan low khilaafka aan ka dayno adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway dikriga kii badshaaba in loogu dembi dhaafo ajri weyn loo diyaarsho ilaahay ba ugu deeqay adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii runtaa ha laysu sheego beentaa ha layska reebo waxaana loo ruqsaynin raadkooda yaan la raacin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway zakaada xoolahaada haddii aadan haysaabin xaquu ilaada siiyey miyaadan xoog ku haysan adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii zakaada xoolahaaga haddii aadan xisaabin xaquu ilaadad siiyey miyaadan xoog ku haysan adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway sahalyaynaanu qaadan waxba ina sugaaye sirtiyo beenta dhaafno salaamasaanu gaarno adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii shayddaanka yaan la raacin sharmooye khayr ma sheego shirkigiyo waswaaska shishay ha laga tuuro adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway salaada iyo soonka wakhtiga loo sameeyey haddii aan sarma seegno ilaahayowna saamax adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway dalaaladaada raacday xaqa daba maryaysay ilaahi kaaga diigay miyuu ku daawanaynin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii dalaalada ad raacday xaqa daba maryaysay ilaahi kaaga diigay miyuu ku daawanay xaafadiian keenay markaa geedkaas ayaa waxaan doonaya inaan ku mashquuliyo si uu geedka u daaqo intuu geedka daaqayo ayaa waxaan rabaa markaa inaan dabro hadduu iga yeelo markaa hogaankana aan ka furo markaa geedkiibuu daaqaya waa kaa geedka waa qabsaday haddana waxaan rabaa inaan xariga ka furo runtii ratigan rati caadiyo maaha saan idiin sheegay caruurta ayaa sida ugu falaadaysay marka uu ratigu yaraa da-diisu waa 5 jir ayuu wuxuu noqday dee rati aan loo soo dhawaa karin haddii meel laga taabto wuxuu u maleeyaaba markaa in la juqajuqeynayo ama in markaa ilmihii ku ciyaarayay markaa xarigii baan hadda ka furayaa hogaankii markaa runtii xariga aad buu xoog buu u xiran yahay waayo aniguna markii malaha si qaldan baan u xiray ilmuhuna saako dhan intay la dagaalamayeen oo jiidayeen buu xarigii xoog u xirmay marka inaan ratiga iska celiyana waan rabaa iska ilaaliyo xarigiina furana waan rabaa wiilasha aan habarta wahaba ii sheegan waxay dhaheen habar yar iska ilaaliyo wax caadi buu iskaga kaa dhigayaa wuxuu soo dhawaanayaa marka wuxuu iskaga kaa dhigayaa si caadiya inuu kuu soo aadayo kadibna qab buu kaa siinaya ama ku qaniinayaa marka waa aniga wadinkaa ujeeda ratigii dee xarigi ka furaya dagaalamayna waan sirsiraya waxaan leeyahay caadi iska dhig yaa xarigaa lagaa furayaa wuu cuntamayaa aniguna waxaan kuri waan iska celinayaa marka wallaahi ratigu aad buu noo dhibay waxaan kuri maanta i shaqaan isaga aanba maana lahayn ilaa isaaka ilaayo maxay tahay saacado badan buu nagu qaatay ratiga inaan guriga keeno kadibna aan xariga ka furno waan barbaryay waxaan leeyahay niyo caadi iska dhig asxaabta youtube-ka ha igu ceebeen gabar balaaya ka dhacdaan rabaa inaan iska dhigo waxaan maqli jiray maamaadii ahayd geel indhakuul muxuu ka kasaa yaa maamaada reexamarka marka geel bari muxuu ka kasayaa waxba ma ka garanayo aniga isku xanaajiya waxaan ku waryaa istoosi xarigaa lagaa furaya maxaas la waalaysaa marka runaantii ratigii hogaankii wuu ugu dhibay ratigu rati caadiya ma ahan
marka dabcan dadkii geel soo ilaali jirana xooluhu way kala duwan yihiin geel wuu kala duwan yahay qaarba hebada ama qaarba caadiya de geel maxay tahay aan dhib lahayn oo la hogaami karaa dabarka laga furi karaa qayb waa qayb dad cuna qayb waa xitaa dadka ku tunta oo waxaa jira dad badan oo marka geel uu ku tuntay marka hadda midkaan isagu afku wax ku cunaya maahana kuma tubanayo xarigii marka kore waan ka furnay xariga ayaa aad marka ugu xiran oo hadaayade markii aan xiray wiliba iyo wiilashii marka aad u jiijiiday xariga marka waan furi waayay isagiina way la dagaalamaya waxaan ku leeyahay labadeena waxaan ku yiri dagaal baan ku jirnaa marka run ahaantii iimaysu suurta gelin ugu dambeyn ma ii suurta gelin ratiga inaan xariga ka furo marka iima suurta gelin waxaan dagaal badan aan galnaba runtii aan ku guuleysan waayay inaan xariga furo xariguna xoog buu u xirnaa hadduu xarigu caadi u xirnaa lahaa mar horaan furi lahaa dabri lahaa ratiga marka iima suurta gelin aad baan uga xumahay maxay tahay ratigii isagoo la dagaalamaya iyo dee isagii xarigii aan furmayn markaa bay soo aadaba waxaan ku ri on baacinay xalayahay naga joogana soo aadina marka si walba tahay ugu dambeyn islaantii ratigii way furi weysay ama xarigii way ka furi weysay inaan dabraan dooniyay waan soo hogaamiyay wada arkayseen wiilkii baa u yimid marka wiilka xoogaa isaga laftigiisu marka hore wuu istaagay laakiin xarigii intuu la dagaalamay ratiga isaga waxaaba dhibayaba taataabashada waxaa ilmaha dadka faraha la soo aadaya baa dhibaysa waxaan u leeyahay ratiga inaan la rara doonin marka si walba la yeelaba xarigii waa la furi waayay xarigii waxaa markaa sabab u noqday jiiditaankii maanta dhan ratiga la dagaalamayay iyo waliba aniga waxa weeye aan si qaladan malaha u xiray ugu dambeyntii ratiga waan fadhiisanay markuuna dhibay waxaan naga fadhiiso dib ayaa lagu fadhiisiyay fadhiga wuu naga ogolaaday marka lugta laga sii xirnaya xarigana waa la jaraya xaafadiiba midi laga doonay marka midida ayaan hogaanka ku jaraynaa xariga lugtana waxa looga xiray si uusan u fakan oo waxa weeye geelashii uu raadsanayay waa ratigu mar walba guriga agtiisa ama meelaha lagu soo xiray ma doonayo marka midida ayaan ku jaraynaa xariga waan kaga jarnay si aan u dabarno lugta ayuu ka xiran yahay kadibna waa la dabrayaa mar walba meeshii geel ka muuqda ayuu u cararayaa waa caato waxa weeye jidaalkii baa weli ka muuqda marka wiilka yarka baa dabraya dabarka anigu waan jeclaa anigu inaan dabro oo deen ku guuleysto laakiin waan ka xumahay ratigu maaha rati la rara jiray ama rati weliba la rartay oo waxa weeye loo dhawaa karo intii dhib laga soo maray waad aragteen baa u malaynayaa marka sida ayaa loo dabraa iska bartaa wiilka yarka ayaa dabraya dad badan baa ayagu waaweyn geela ka cabsada marka ninka yarka ayaa dabraya marka si walba mawduucan intaas ku saabsanaa maantay qeyr badan baan idin rajeynaya like-ta ii saara muuqaalka markaad dhammaysataan sidoo kale subscribe-kana ii saara ratigii markii la dabray sidaas uu soconaya waa kaasa sidii waxaan ku yiri maasha Allah sidii gabar la gudubay soo waday marka si walba ay tahay ratiga waa ka sida ayaa loo qabiray ama loo dabar weeye tan inta ku kulmi doona mawduucayga sidaas iyo nabadiino